gudoomiye soo dhow marka hore sidee wax u dhaceen waa mahadsan tahay runtii waa arrin laga naxo in maanta oo ah maaragtay qarnigii 22aad in maaragtay dawladdii dimuqraadiyadda lagu soo doortay isla mar ahaantaana aan ka rajaynayna in dalka dimuqraadiyad ay ku hagto isla markii iyadii dawladdii ay kusoo noqotay saxaafadii madaxa banaaneed xalay fiidnimadii waxaa dhacay in xafiiska ay yimaadaan ciidamo afduuban oo uu hogaaminayay nin la iigu sheegay shakiib oo ah taliyaha nabad sugidda howlwadaag kaasoo maaragtay xafiiska ay yimideen xafiiskan waa xirnay nasiib daro laakiin waxaan haynaa cadaymihii iyo muuqaaladii inay xafiiska yimideen ah waxaa kaloo maaragtay runtiina nasiib daraa in shalayna dad ka tirsan shaqaalaha dawladda ee run ahaantii ay xogayaha guud ay ku beegsanayeen baraha bulshada iyo sidoo kale maaragtay si walbaba ay ahaataba ay beegsanayeen taasna ay ka dhalatay kadib markii warbaahinta madaxa bannaan shalay xafiiska ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ay ku qabteen shir jaraa'id kaasoo looga gol lahaa in cabasho laga muujiyo go-aan wasaaradda warfaafintu ay iskeed u gaartay oo ahaa maaragtay aan maaragtay ugana cabsi qabnay go-aankaas in uu saameeyo warbaahinta madaxa bannaan sida dastuurka ku xusanna maaragtay concernkeena waa muuji karnaa xaqan u leenahay inaan concernkeena muujiyo laakiin midna kama kaftamayno annagu adaan nahay saxafiyiinta run ahaantii dagaalka lagula jiro frontlinekan uga jirnaa waxa soo tabinayo oo maaragtay warbixinada soo wada tabinayo dhammaantood waxaa waaye waa saxafiyiintii run ahaantiina in isla saxafiyiintii madaxa bannaana inta lagu soo noqdo dawladda isku dayayso inay caburiso taasna wax suurtagala ma ahan waxaana maaragtay run ahaantii aan ka codsanaynaa dawladda in ay maaragtay ay dib u fiiriso waxyaabihii dhacay iyo raggii ka dambeeyey sidoo kale anoo ku hadlayo magaca saxafiyiinta soomaaliyeed waxaan cambaaraynayaa falkii nabad sugiddu ay kusoo weerartay kuna timid xafiiska ururka saxafiyiinta soomaaliyeed waxaa nagula bartilmaameedsadana maaha kaligeen ma aha waxa la bartilmaameedsanayo waa saxafiyiintii oo dhan waa ururadii saxaafadda wixii shalay meesha shirka jaraa'id kaga qayb galoo dhanaa bartilmaameed ah waayahay laakiin gudoomiye maxaa SJS kaligeed loo bartilmaameedsaday ilaa dhowr urur saxaafadeeda shalay shirkii jaraa'id wada qabtay wayna hadleen runtii waxaa loo bartilmaameedsadaa waxay tahay in xafiiska ururka lagu qabtay shirka jaraa'id ma ahe waxa la bartilmaameedsanayo waa ururadii shalay meesha wada joogo dhan a bartilmaameed ku saaran yahay sidee ku xaqiijinaysaa gudoomiye in ururada kale ama saxafiyiinta dhammaantood ay bartilmaameed yihiin runtii waxaad ka dareemi kartaa markii shalay cabashada la muujiyey shalay waxay ahayd cabasho dawladda go-aanka ay gaartay inuusan saameynin warbaahinta madax bannaan aan kaga cabanayna isla cabashadii markii la sameeyeyna meeshii lagu qabtay shirka jaraa'id ayaa isla habeennimadii waxaa loo sii diray ciidamo hubaysan taasna waxay muujinaysaa in SJS kaliya aysan bartilmaameed ahayna intii ka wada qayb gashay shirkaas jaraa'id iyo saxaafadii madaxa bannaaneed oo dhan ay wada bartilmaameed yihiin taas ayaa noo cadaynaysa sababtoo haddii aan waxa shirka jaraa'id ka wada qayb galo aysan bartilmaameed ahayn xafiiska SJS lama imaadeen waayahay dawladdu waxay sheegtay inaan la baahin karin wararka la xiriira al-shabaab baraha bulshada aan lagu daabici karin SJS way cambaaraysay maxaa si ka duwan sidii shalay loo hadlay oo kale loogu hadli waayey oo loo xeerin waayey hadalkii dawladda ka soo baxay runtii horta dawladda dagaalka ay kula jirto al-shabaabka waxa frontline-ka kaga jira oo safka hore kaga jira waa saxafiyiinta waaye waxa saxafiyiin waxa maaragtay maalin dhaweed qaraxii balcad maaragtay wariyihii telefishinka qaranka ee u shaqaynayay qaraxa ku dhintay frontline-ku ka soo hadlaya marka saxafiyiintu waa waxa ugu koobaad ee dhibaatada ay saameynayso warbaahinta teeda kale saxafiyiinta madaxa bannaan naftirkooda waxay safka hore kaga jiraan marka cid tiri yaa maaragtay dawladdu hadalkii ay tiri cid ka hortimid ma jirto balse waxaa jirta ah in isla hadalkaas fasiraad la saari karo loona adeegsan karo saxaafadda madaxa bannaan in lagu caburiyo iyo dadka critics-ka ah taas waa waxa anagu aan cabashada ka qabno waayahay marka wax dhibaato ah oo xafiiska SJS loo geystay ma jirta
ilaa ay hadda wax dhibaato ah oo xafiiska loo geystay ma jirto balse runtii waxaan concern weyn ka qabnaa oo aan cambaaraynaynaa falkii xalay xafiiska ay ku timid ciidamada nabad sugidda ay ku yimideen aan cambaaraynaynaa waxaan kaloon dalbanaynaa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sababta loo yimid xafiiskeena iyo ujeedada laga lahay sababtoo ah waa xilli xasaasiyaha lagu jiraa in maaragtay in ciidan inta la iska diro oo uu meel tago oo gafuura duuban run ahaantii waa arrin cabsideeda leh waaye waana cambaaraynaynaa falkaas waayahay saakay xubnaha s j s ee xafiiskaas ku shaqaynayay ma soo galaan shaqada xafiiska s j s si caadiya u shaqaynayaa shaqadu waa socotaa secretariatka iyo dadkii kale ee meesha ka shaqaynaya dhammaan way joogaan way nabad qabaan wuuna shaqaynaya xafiiska waayahay maxaa baaqa oo aad diraysaa guddoomiye ugu dambeyn runtii baaqa aan diray waxay tahay in dawladdu tallaabooyinka ay qaadayso ay si maaragtay dhimir ama caqli lagu daro oo ay warbaahinta madaxa bannaan la tashato kala tashato go-aamada masiiriga ee warbaahinta ku saabsan ay gaarayso dawladda keligeed dagaalka kuma jirto warbaahintuna qaybay ka tahay isla warbaahintaas in inta lagu soo noqdo la caburiyana annagu ma yeelayno mana u dulqaadan karo waaya waa mahadsan tahay guddoomiye waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga